طالوت وجالوت. waqtiyada ka mid ah reer bani Israa'iil waxa ay ahaayeen kuwa cadowgoodu ka adkaaday waxa ayna cadowgoodu ka qaateen taabuudkii reer bani Israa'iil waxa ay dareemeen dulli iyo ceeb waxayna u tageen nabigooda waxayna ku yiraahdeen nin boqor ah noo soo saar oo hogaamiye dagaal ah Ilaahay daraadii uu la dagaalamayna si aan u soo ceshano dhulkeena iyo sharafteena nabigoodii ayaa weydiiyay ma u dhowdihiin hadii jihaad la idinku waajibiyo inaydaan dagaalamin waxay yiraahdeen maxaa noo sugnaaday oonan u dagaalamaynin iyadoo nalaga saaray guryaheenadii ayaa soo degay nabigoodii marka waxa uu ku yiri Ilaahay waxa uu soo saaray Daaluud waxa ka soo hor yimid madaxyaweyntii waxayna ku yiraahdeen nabigoodii sidee anaga madax inoogu noqon karaa anaga ayaa uga mudan waxaanti ah ma haysto hodan ma aha nabiga waa la yaabay waxa uuna u cadeeyay inuu Allah doortay inuu madax idin noqdo waxaana uu u kordhiyay xagga cilmiga iyo awoodda ciduu doona ayuu madaxtinimada siiyaa calaamad waa inuu taabuudka idin keeni doono iyadoo laba malaa'ig ay sidaan ay arkeen taabuudkii waa ay u hogaamsameen iyagoo dhibsanaya markii uu isku diyaariyay dagaalkii uu doonay inuu imtixaan ka qaado inuu ku yiri Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu idinku imtixaamayaa wabi qafkii kacabobigaas inuusan ka mid ahayn aanu u raaci doonin macrakada markii uu arkay oonkooda iyo haraadkooda oo aad u badan waxa uu isku dayay inuu u qafiifiyo waxaan uuna u ogolaaday kabasho biyo oo kaliya reer bani Israa'iil badankooda waa ay cabeen Daaluudna halkii ayuu uga dhaqaajiyay iyo intii mu'miniinta ayaa cabin wabigaas waxa ay kulmeen ciidamadii Jaaluud oo aad u tiro badnaa aadna u awood badnaa qolo ka mid ah ayaa waxa ay ciidamadan aad u tiro badan waa ay sanad jabi doonaan qolo mu'miniinta kamid ayaa waxay ku yiraahdeen guusha Ilaahay ayuu maciisa ahaaday cidii doona ayuu siiyaa adana koox yar oo ka guuleysata koox aad u badan waxa is helay Daaluud iyo Jaaluud ciidamadooda waxaana mubaaraza u soo baxay Jaaluud waxaana u baxay Huud alayhi salaam dhalinyaro ahaa gaas ugu dambeyn waa ka adkaaday Daawud Jaaluud subhanahu wa ta'ala waxa uu guusha meesha ku siiyay Daaluud iyo ciidamadiisa Daaluudna meeshii ayaa lagu jabiyay hazamuhum biidnillah Ilaahi idinkiisa ayaad ku jabiseen walamma barazu li Jaalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.